maxaakimta islaamiga ah ay si fudud u dhex galeen dhallinyaro jihaadiyiin ah oo markii dambe samaystay ururka al-shabaab. waa qodobka ay ku saabsan tahay qaybtii saddexaad ee taxanaha aasaaska al-shabaab. haaruun macruuf ayaa inoo haya. sanadkii 1998 waxaa magaalada muqdisho ka hana qaaday maxkamado ku salaysan qaab beeleed oo hadafkoodu yahay soo celinta amniga iyo kala nabadgelinta bulshada, shareecada islaamkana wax ku xukuma. hindisaha maxkamadaha waxaa iska lahaa culimmo u badan, kuwa qunyar socoda iyo aqoon-yahano iyo dad waxgarada, waxaana inta badan maalgelinayay ganacsatada beelaha kala duwan ee maxkamadaha furtay. dhismaha maxkamadaha islaamka kuma cusbayn magaalada muqdisho, sababtoo ah maxkamado qabaa'il oo ay maamuli jireen culimmada suufiyada ayaa ka soo jiray degaanada waqooyi ee magaalada muqdisho bartamihii sagaashameeyada. waxayse burbureen kadib markii ay siyaasiyiintu soo farageliyeen dib u soo nooleynta maxkamadaha islaamiga ah oo fulin jira xukunno qisaas ah iyo weliba furdaaminta dembiyada iyo muranada kale ee madaniga. waxaa dadka horseeda ka mid ahaa sheekh cabdulqaadir cali cumar oo aasaasay maxkamaddii ugu horreysay ee islaami ah oo ahayd maxkamaddii xaruntii shiir kole ofishaale. runtii horta waxaa jirtay waxyaabo aada la yaab u leh oo adag ayaa meesha ka jiray. dad oo yani maaragtay nimankii oo maleesiyad xukumi jiray goonkaxida ayaa meesha ka jiray. waxaa jiray dad badan oo markaas aan iyagana ku gambada laakiin iyago aynan xukumin ayaa jiray. waxay bilaabeen inay dadka qafaalaan oo marka ciddii ay u arkaan in lacag haysata intay qaataan markaas ay xirtaan oo lacag ay ka qaataan madax furasho ah. baabuurta inay dhacaan, inay dadka ay maaragtay hanti darteeda ay u dilaan. markii dee dadkaas ay dhibaato ay maleesiyadka u geystaana waxaa laga yaabaa maleesiya kale inay markaas ay qabiil ahaan ay uga aargoostaan qof beri ah oo waxba aan qabinin oo iska masaakiin oo duulkiisa ka maray in loo dilo. cidda kale ah ama dadka kale ah oo markaa u dhaqaaqa yani wax caama oo guud oo dadkii wax taray ka shaqeynayay noqdeen. waxaa kaloo jiray dad nimankaas waxyaabaha kaloo ay samayn jireen dhibaatooyinka waxaa kamid ah inay wadooyinka ay goostaan oo dadka markaa dariiqata u fariisan ay ku dhacaan. waxyaabaha marka ay qabanayeen waxaa kamid ah amnigaas. waxaa kamid ahaa dalka mar haddii dowladla-aan ay dhacday dhibaato badan baa dhacday, dad badan baa wax kala qaatay, hanti badan baa lakala dhacayay, lakala haystay. marka waxay noqdeen marka meel oo dadka usoo dacwo tagaan oo dadka lagu kala saaro. dhulka ayaa aad u badnaa oo runtii guryo lakala haysta ahaadan ama dhul inta lagu diro la isku qabsado ha ahaado oo markaa lakala saaro dadkii si sax ah oo sharciga islaamka markaa lagu kala saaro. waa gartay. marka ujeedada ugu weyn waxay ahayd nidaamka iyo kala dambeynta iyo amni in la helo, waana sababta maxkamaduhu markii dowladda carta lasoo dhisay ay hubka dowladdii ugu wareejiyeen. nacam, waa saasay ahayd. maxaa yeelay waad ogsoon tahay oo waxa weeyaan xilligaas runtii waxyaabaha dhaxalgalka waxaa kamid ah shabeellada hoose ilaa baraawe ayay tageen. meeshaas oo runtii waxyaabo taariikhiga ay ka qabteen oo dad dhibaato weyn gobolka ku hayay oo dhalinyaro ah oo cid xukunta aynan jirin oo waxyaabo aada loola yaabo samayn jiray oo yani dadka dhibaato ku hayay. dhibaatooyinkaas waxaa kamid a yani qaar waxaa jiray oo lagu eedeyn jiray inay biyaha ay gadan jireen. qaar waxaa jiray dadka markii ay suuqa badeecooyinka ay keedsadaan caanaha iyo dhibaato badan ku hayn jiray oo sidee doonaan ka yeeli jiray. marka xilligaas anagu waxaan kamid ah dadkii meeshaas tegey. runtii waxyaabaha dadku markay kugu sheekeynaya waxay kuleeyihiin yani waxay la yaabanaayeen dadkan meesha inta tegey sidaan wax u qabtay way la yaaban. waxay leeyihin waxaanay dee wax sii jiraya ma yihiin, waxaan la yaabanahay weeyaan waxaan. dabayaaqadii sanadkii 2004 maxaakiimtii islaamiga ee ku salaysnaa beelaha ayaa isugu yimid kulan ka dhacay magaalada muqdisho, waxayna samaysteen ururkii midowda maxaakimta islaamiga. sheekh cabdulqaadir cali cumar ayaa iiga warramay isu imaatinkii maxkamadaha iyo dhismihii midowda maxaakimta. xilligii carta ka dambeeyey carta markii waxaa jirtay dowladdii way shaqayn weysay. waa kuwii qolooyinkii meesha jooga goonkaxida ka hor yimaadeen. kabacdi markii dhibaatadii ay sidoo kale usoo laabatay ayaa mar labaad waxaa la isku xilqaamay in maaragtay dib loo aas-aaso. markii dib loo aas-aasay oo ay samaysmeen dhowr maxkamad baa samaysantay. waxaa kamid ahay maxkamadda shir kole, waxaa kamid ahay maxkamadda ifka xalan, waxaa kamid ahayd maxkamad oo maxkamadii c c baa kamid ahayd, waxaa kamid ahay maxkamad warshada caanaha la oran jiray baa kamid ahayd, waxaa kamid maxkamad bolitechnica la yihahdo ayaa kamid ahayd. adigu guud ahaan maxkamado xarir yaala kamid ahayd. ilaa 7 maxkamadood aan rajeynaya inay ahaayeen ayaa markaas yaa isku yimaadeen. midowgii baa la inta maxkamadaha la xusi karo hadda markaa rasmiga iyadoo midowga samaysay intaasay ahayd. kuwa kabacdi samaysmana way jireen oo maxkamadda alfuqaan ay kamid ahayd oo iyagoon markaa midowga kasoo qayb ka noqday. dabadeedna markaas kabacdi maxkamaduhu markay fariiseen waxay go-aansadeen markaas in maamul ahaan loo mideeyo. maamul ahaana loo mideeyey marka xilligaas oo shariif marka guddoomiye looga dhigay. sidaasi marka ay ku shaqeeyeen markaa. waa garta. waxaad ii sheegtaa
toddobada maxkamadood ee sameeyey midowda maxkamadaha yaa guddoomiyaashooda wax iga sheeg. maxkamadda yaaqshiid waxaa guddoomiye ka ahaan jiray ama c c markii la yihahdo hadii la yihahdo waa sheekh shariif oo ahaa, xarir yaale sheekh nagiir oo ahaa, ifka xalan sheekh xuseen dheer oo ahaa, shiir kole cabdiqaadir cali cumar oo ahaa, buulo tignico waxa weeyaan sheekh cabdullahi axmed ciida la oran jiray, warshada caanaha ma xasuuso runtii xilligaas ninkii haya laakiin dhowr guddoomiye soo martay. intaas waa midowga markii ugu horreysay. alfurqaan kabacdi aa kusoo biirtay. alfurqaanna markii hore guddoomiye macali axmed leera kamid noqday, kabacdina waa guddoomiye nin kale lagu bedelay la yihahdo guddoomiye ka ah cabdiqaadir maxamed bare la yihahdo, oo markii dambe shaqadu ay badatay markaas uu shaqaynayay. marka dadkaasaa guddoomiyaalka ahaa. kulligoodna waa rag hadda wada jooga raggaas oo dhani oo dadka hadda shaqaynaya kamid a. waa gartay, mana ahayn dad al-itixaad ama shabaab ah? dadkan dad oo ku tacalluqa yani maarata shabaabna maysan ahayn, al-itixaadka aseegtana maysan ahayn, laakiin dad waxay ahaayeen dadkii maxkamadaha dhistay dad ay soo doorteen ayay ahaayeen. dadka maxkamadaha dhisana horaan kugu sheega waxa weeyaan waa beelaa dhisay, beelasha odayaalkeeda, culimadeeda, dhalinyaradeeda, hooyooyinkeeda, dadkaasaa maxkamadda dhistay. dadkaasaa marka qofka mas-uulka noqonaya iyagaa soo saaray. horumarka ay haddaba maxkamadaha islaamiga ee beelaha ku salaysnaa ay gaadheen waxaa hadheeyey eeda soo baxayay oo ahaa in maxkamadaha ay si fudud u dhex galeen xubno ka mid ahaa ururkii al-itixaad al-islaam oo uu ka mid ahaa sheekh xasan daahir aweys iyo qaar ka mid ahaa dhallinyaradii jihaadiyiinta oo ay ka mid ahaayeen ibraahim xaaji jaamac, aadan xaashi cayrow iyo sheekh mukhtaar roobow. sheekh cabdilqaadir cali cumar guddoomiye ku-xigeenkii maxkamadaha islaamiga waxa uu isagu ii sheegay in ururka al-itixaad aysan wax luga ku lahayn aasaaskii iyo maamulkii maxkamadaha. nimankan dhalinyarada ah runtii yani habka hadda loo bartay oo shabaab iyo inay urur ay ahaayeen dadku hadda umaysan aqoonin, laakiin rag dhalinyaraha dee magaalada jooga oo markaas oo jiray way jireen, laakiin hadda goobo mucayan oo ay degan yihiin aynan jirin, oo laakiin dadka un jooga magaalada ka mid ah oo dhaqdhaqaaqa. waa gartay, laakiin waxaa jirtay xubno ka mid ahaa ururkii al-itixaad oo maxkamadaha qaarkood ku jiray sida maxkamadda ifka xalane sheekh xasan daahir aweys. waxaa kaloo la sheegaa taliyihii ciidanka ee maxkamadaas aadan xaashi cayrow inuu isaguna ka mid ahaa dhalinyaradaas. marka sidee bay isku soo galeen labada dhinac, maxkamadaha iyo dhalinyaradan? horta maxkamadda ifka xalan waxaa guddoomiye ka ahaa nin la yihahdo sheekh xuseen maxamuud jimcaale ayaa guddoomiye ka ahaa oo maxkamadda mas-uul ka ahaa. ragga aad tilmaamaysana waxa weeyaan maxkamadaas hadda markaan dambe oo yani maaragtay ahayd xilligaan aan ka hadlayno hadda dambe oo yani xarta ka dambeeyey oo maxkamadan ay shaqaynayeen. sida la ogsoon yahay maxkamadaas kamuunan ahayn yani maaragtay raggaas taliyo kama ahayn. xilli uu ninkii dhintay oo aadan cayrow la oran jiray uu ka shaqayn jiray way jirtay, xilliga carta iyo waxyaabahaas horey ahayd. sheekh xasan oday guud iska ahaa, laakiin maxkamadda sheekh xuseen un baa wadi jiray oo mas-uul ka ahaa. raggan marka markii aniga dhab ahaantii aan kaga warramo inta macluumaadka aniga aan ka ogahay, nimankan aniga hadda inta aan ka arki jiray oo aan ka ogaa waxa weeyaan magaalada muqdishona way joogeen. rag dhalinyaro ah oo meelaha qaarkood yani tadriibaad ku sameeya way ahaayeen, laakiin maxkamadaha iyagu shaqa iskuma aysan lahayn. maxkamaduhu maamulka oo midowga ayay lahaayeen, iyaguna midowga kuma aynan jirin oo shaqa kuma aysan lahayn. markii dee dagaalku uu dhacay oo dagaalkii dadkii ka qayb galay kamid aha, dagaalka sida la socda dagaal shacbiyuu ahaa. markii dee dambo dee dagaalkii lagu guulaysana nimankii waxay iyagu si dhinacay isku taageen oo markii waxa la dhisayey iyagoo magac gaara wata ayay maaragtay dhismihii qayb ka noqdeen. abaabulka jihaadiyiinta waxaa sii caawiyey ururka alqaacida oo awooddiisii ay sii kordhaysay oo doonayay inay mabda'ooda ku fidiyaan soomaaliya. waxaana mabda'ii jihaadka ee soomaaliya iyo kan caalamiga xadhiggooda sii adkeeyey dagaalkii la magac baxay dagaalkii argagixisada ee uu maraykanku qaaday kadib weerarkii sebteembar 11 sannadkii 2001. hay-adda sirdoonka ee maraykanka ee c i eda ayaa iskaashi la samaysatay qabqablayaal dagaal iyo saraakiil hore oo dhinaca sirdoonka iyo amniga u qaabilsanaa dowladdii soomaaliya, waxayna saraakiisha c i edu bilaabeen inay soomaaliya ka ugaarsadaan dadka ay uga shakiyaan argagixisanimada. howlgalka ay wada samaynayeen c i eda iyo qabqablayaasha dagaalkuna waxaa la aaminsan yahay inay xubno isugu jira soomaali iyo ajaanibba ka dhoofiyeen soomaaliya una gacan geliyeen dowladda maraykanka.
dadka xilligaasi laga qabtay soomaaliya waxaa ka mid ahaa guuleed xasan axmed oo haatan ah qofka keliya ee soomaaliga ee ku xidhan xabsiga guantanamo bay ee kuuba maraykanku waxay sidoo kale si weyn u baadigoobayeen 3 nin oo ajaaniba oo lagu tuhunsanaa inay ka dambeeyeen qaraxyadii safaaradda maraykanka ee nairobi iyo daarasalaam sannadkii 1998 bishii janaayo 2005 mid ka mida dhallinyarada ugu firfircoon jihaadiyiinta aadan xaashi cayrow oo ka mid ahaa dhallinyaradii ururka al-itixaad ee ka dagaal gashay gobolka gedo iyo gobollada waqooyi bari iyo xubno kale oo dhallinyarada jihaadiyiinta waxay weerar burburina ku qaadeen qabuurihii talyaaniga ee u dhowaa cisbitaalkii SOS ee degmada Huruwa ee magaalada Muqdisho waxayna jihaadiyiintu ay qabuurahaas u rogeen xarun tababar xaruntaasi waxa ay noqotay xarunta tababarka ama akademiyada maleeshiyada jihaadiyiinta waxaana loo bixiyey mucasirka salaaxudiin horjoogaha xaruntaasina waxaa noqday axmed cabdi godane dhalinyarada jihaadiyiinta Soomaaliya xilligaasi ma lahayn hogaamiye toos ah inkastoo ay jireen odayaal ay talada ula noqdaan oo ay ka mid ahaayeen Sheekh Xasan Cabdullaahi Xirsi Sheekh Xasan Turki iyo Ibraahim Xaaji Jaamac Ibraahim Afqaan oo isagu uga khibrad badnaa dhinaca dagaalka maadaama uu si weyn uga soo qayb galay dagaaladii lagu bixiyay Soofiyeedka ee dalka Afghanistan military ahaan iyo degaan ahaanse waxaa marba marka ka dambaysa soo kobcayay doorka uu lahaa aadan xaashi cayrow waxaana uu si weyn ugu soo shaac baxay burburinta qabuurihii talyaaniga iyo aasaaska dugsiga salaaxudiin oo noqday dugsigii labaad ee lagu tababaro dhallinyarada waxaana hore u furnaa xarunta tababarka ee raaskambooni oo uu maamulayay Sheekh Xasan Turki waxaa labadaasi akademiyo ka soo qalin jebiyey boqolaal dhallinyaro ah oo laga dhisay dhinaca dagaalka hogaaminta iyo istiraatiijiyada dagaalka iyo hirgelinta jihaadka Soomaaliya iyo kan caalamiga iyo isku xidhkoodaba aadan xaashi cayrow waxa uu noqday taliye ciidan oo aad u adag waxaana uu caan ku noqday tababarka iyo abaabulka ciidanka aadan xaashi cayrow waxa uu markii dambe la baxay magaca jihaadiga ee Abu Muxsin al-Ansaari iyadoo dhallinyarada uu tababarayna ay ugu yeedhi jireen macallin aadan cabdiraxiim ciise cadow waxa uu ka mid ahaa maxkamadihii islaamiga aadan wuxuu ahaa hadda ninkii kolley waktigiisa horta waa uu dhammaaday waa uu dhintay alla u naxariisto laakiin anigu intaan ka aqaanay wuxuu ahaa nin firfircoon oo abaabulka ku fiican masalan wuxuu caan ku ahay lagu wada yaqiinay hadda tababarka waxaa la yidhaahdo in ciidamada ururintooda isku aadintooda iyo tababaradooda iyo moraalkooda sida loo dhisi lahay iyo wuxuu ahaa nin bays oo ah oo hadda macallin marka la leeyahay waxaa lagu yeeray macallin dugsi qur'aan ma ahayn ama macallin iskuul ma ahayn macallin aadana uu macruuf ku yahay marka shabaab laga dhex hadlaayo waxa uu macallinku ah wuxuu ahaa tababarada bishii maarso 2006 qabqablayaashii Soomaalida ee taageerada ka helaya hay'adda CIA-da ayaa qaaday tallaabo qariska tuura kadib markii ay samaysteen dallad lagu magacaabo isbahaysiga soo celinta nabadda iyo la dagaalanka argagixisada waxayna u muuqdeen inay cadow ka dhigteen guud ahaan ururkii midowda maxaakimta islaamiga oo xilligaas midaynayay maxkamadihii beelaha iyo xubnihii salafiya jihaadiya ee ku dhex qarsoonaa markii uu dhacay dagaalkii maxkamadaha iyo ururkii la dagaalanka argagixisada ee ay asaaseen hogaamiye kooxeedyada waxaa gacanta sare yeeshay maxkamadaha oo guule istabajooga ka gaadhay dagaalka waxaa la aaminsan yahay in guulaha militari ay kaalin weyn ku lahaayeen shacabka Muqdisho iyo ciidamadii maxkamadaha waxaa kaloo iyaguna qayb ka ahaa ciidankii tababarnaa ee mucaskaraadka raaskambooni iyo salaaxudiin gaar ahaan waxaa la sheegaa in dhallinyarada jihaadiyiinta ee tababarnaa ay qayb weyn ku lahaayeen qorshihii dagaal ee lagu jebiyey hogaamiye kooxeedyadii Bashiir Raage iyo Maxamed Qanyare Afrax oo ay ka qayb galeen ciidamadii ay soo tababareen Afqaani aadan cayrow iyo godane iyo rag kale oo la maamulayay dugsiyadaasi uuna ka mid ahaa Cabdullaahi Cali Naxar Abu Cutayba iyo xubno kale oo ajaaniba waxaa kaloo ka qayb galay dagaalkii Jowhar ee lagu jebiyey hogaamiye kooxeedkii Maxamed Cumar Xabeeb Maxamed Dheere ciidamadii raaskambooni ee Sheekh Xasan Turki iyo weliba maleeshiyada gudoomiyihii gobolka Shabeellada Hoose Sheekh Yuusuf Maxamed Siyaad Indhacade oo iskaashi la lahaa dhalinyarada maxkamadihii islaamiga ee Muqdisho waxay ku guuleysteen dagaalkii ay la galeen qabqablayaasha maxkamaduhu waxay talada Muqdisho la wareegeen toddobaadkii ugu horreeyay bishii Juun 2006 midowgii maxaakimtu waxay markiiba samaysteen 2 gole oo kala ahaa golaha fulinta iyo golaha shuurada golaha fulinta waxaa madax looga dhigay Sheekh Shariif Sheekh Axmed halka golaha shuurada uu madax ka noqday Sheekh Xasan Daahir Aweys oo ka tirsanaa ururkii al-Ittixaad al-Islaam waxaa markiiba soo baxday in xubnihii dhallinyaradii jihaadiyiinta ay guulaha la gaaray ka sokow yihiin budo gaar u tuman xildhibaan Maxamed Aweys waxa uu xilligaasi ka mid ahaa maxaakimtii islaamiga
markay arkeen telefoonka shacbigii oo jimco walba imaanayo oo la wacyigelinayo oo dareenkooda uu aada iyo aada diyaar u yihiin inay dhaqaalo bixiyaan, inay dib u dhistaan, inay nadaafadii soo celiyaan. markay arkeen shacbigii oo gacanta lagu dhigay waxaa layidhi meeshan maxaa la samayn karaa. haddana waxay yidhahdeen waxyaabaha oo laislandaba jiro waxaa kamid ah aye ninkaa laga daba ordaayo shariif iyo abqaadi cali cumar miya. wallahi dhiigga mujaahidiinta ay wax ku noqdeen xamar ina ka baxnoon Ethiopia inaan soo duqeyno xamar oo diyaarad lagu garaacayo oo arki doonta dhiigga mujaahidiinta wallahi lagay ku noqdo cid aan ka cabsanayo ma jirto. haddaba wax laga reebta ma laha murtadaa tahalay kaalata raggaas ajendo oo gaaray lahaayeen annagana waa naga shakisanayeen. iyaga waxay ahaayeen hub iyo rasaas iyo keed, laakiin iyaga waxaa la ogaaday maalinta dagaalka iidaale oo nabadii la rabay in la qaato oo suudaan marka la tegay qaar ayaga kamid aha raacay siito waxay yidheen wax heshiis la geli karo oo suudaan heshiis aan kula geli karno male. waxaa kaloo laysku khilaafay waxyaabo aad u sahlan oo ka baxsan xasilinta waddanka iyo in lala yimaado siyaasad hufan oo qaran iyo hindise soomaalinimo. waxaa bilaabatay in iska horimaadyo iyo khilaaf weyni ka dhasho waxyaabo ay ka mid yihiin qaadka soo degaya in la mamnuuco iyo in kale, qaabka timaha loo xirto, shaneemooyinka oo la qarxiyo iyadoo amar keliya lagu xidhi karo, mamnuucista daawashada ciyaarta kubadda cagta, sigaar cabbista, dadka oo loo fiirsado sida ay u labistaan ama timaha u jartaan, dadka qaarkood oo jidadka lagu karbaasho iyo waxyaabo lamida. xildhibaan maxamed aweys ayaa iiga warramay waxyaabihii xilligaasi dhacayay. dadka oo diaspora markay soo laabteen maalin waxaan la yaabay yar oo dhalinyaraha oo ku faraxsan oo yiri dalkeyga 20 sano ka maqnaa oo sawir meelaha la marmarayo in la qabtay xabadka dhagax laga saaray iyo timaha oo la jiro. waxyaabo badan ay ku dardari jireen. marka gudoomiyaha maxaakiimta iyo ragga kale waxay ku dadaalayeen khilaafkaas inaan la muujinin maadaama dadka adduunka oo hami weyn oo u lahaaday waxqabadkii 6 bilood, laakiin nimankan ajenda hoose lahaayeen. muddo kadib markii ay maxkamaduhu bilaabeen inay isku ballaariyaan dalka intiisa kale ayay si cad u soo shaac baxday in dhallinyarada jihaadiyiintu ay iska soocayaan xubnaha kale ee maxkamadaha. kaasi wuxuu ahaa wariye haaruun macruuf oo isku soo dabarada barnaamijkan. waxaan aad ugu mahad celinaynaa haaruun macruuf. dhegeystayaasheenna ama daawadayaasha ku xiran youtube-keena sirdoonka iyo page-ka aan ku leenahay facebook-ka ee warbaahinta xushmo waxaad si wanaagsan idinkaga codsanaynaa in aad noqotaan dadka ugu horeeya ee like saarta ama subscribe si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada. sidoo kale waxaan page kale iyo youtube-da kale ee ka baxsan ee muuqaalkeena qaadan doona ama muuqaalkeena koobiyeysan doona ee page-kooda ama facebook ama youtube-kooda soo gashan doona. waxaan ka codsanaynaa inay nagu xusaan oo magaceena isa ka tegin. mahadsan.